waa 20 xigmadood oo naftaada u noqon doona hoggaan. Soo jiidashada ugu wanaagsan oo aad ku hanan karto qalbiyada ayaa ah sameynta wax wanaagsan. Halumin oo iska khasaarin ruuxda adiga ku heelan. Waxaa jiri doonto maalin aad u hilowday iyadoo ka fog. Dhadhan ma laha nolosha aan dhamaystir looga dhigin jacayl iyo kalsooni. wax kasta oo qurxoon waxa ka qurxoon quruxda ku qanacdo. Ha ka daahin danahaaga oo yeesan ku dabrin baqashada ku seejinaysa. Ha u ballan qaadin qofna wax aadan haysan ama aadan u huri karin. dumarku waa awoodda kaliya ee wax disha waxna nooleesa alla ka sokow. saaxiibkaaga ku aamin sifihiisa ka hor ku aaminista sirahaaga. Ha u dulmin dadka sidaa doonto adigoo og daalimka abaalkiisa. ka xuruu fikradaha liita oo faham ujeedka aad u nooshahay. malahan dareenka hayndaab balse waxa uu leeyahay xakameyn. abaabulka iyo nafhurka hirgelinta hadafkaaga ayaa kugu hogaamin kara wax soo saar loo aayo. tayadaada waxay ku xiran tahay quruxda taladaada. jacayl kasta waa guuleystaa haddii uusan noqon hal garab. guurku waa gogol nabdoon haddaad hesho gayaankaaga. ha ka faa'iidaysan dareenka qofku nugul. samirku waa sadkaagee ha saluugin waayaha. ha ka walwalin waxa maqan. weligaa ku qanac waxa aad haysato una dadaal waxa aad doonayso. dooqaaga adiga ayaa u madax bannaan. waxba yaysan kuu samayn hadallada iyo shakigelinta kuwa kale. u daryeel walaalka walaasha sida aad la doonayso naftaada. orayadani hal iyo labo maxaa kaa soo jiitay haddii aad ka wada heshay la soco.